muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 7 qaab oo aad si fudud internetka lacag kaga samayn karto sanadkan. haddii aad shaqo la'aan xaafadda isaga fadhiso, qaabka koowaad iyo lixaad waa kuwa ugu fudud aad lacagta ugu badanna ka samayn karto haddii aad sida saxda u samayso. balse intayna muuqaalka u gudagelin, maadaama su'aalo badan idinka dhex guuxayaan oo ku saabsan qaabka online-ka lacag looga sameeyo, waxaan fursad siinayaa 3 qofood oo idin ka mid ah kuwaas oo aan si toos ah isula xiriiri doono oo aan ka wada hadli doono siyaabaha kala duwan ee internetka lacagaha looga sameeyo. si aad uga mid noqoto 3daas qofood, muuqaalka like saar, soo hel labada emoji ee ku jirta muuqaalka gudihiisa, kadib comments-ka noogu reeb labadaas emoji. waxaan qaadan doonaa 3 qof ee ugu soo horeysa. aan u gudagalna muuqaalkeena maanta. Faceless YouTube channel. Faceless YouTube channel waxa uu yahay YouTube-ka waxa uu kala baxaa personal YouTube channel iyo Faceless YouTube channel. Channel aan qofna ka soo muuqanayn wajigiisa, kaliya qofka channelkaas iska leh waxa uu ka soo muujinayaa codkiisa iyo muuqaallo isdul saar kaliya. adiga oo muujin wajigaaga ayaad YouTube lacag ka samayn kartaa. haddaan isla fiirino channelkan hadda waxa la yiraahdaa Body Hub ayaa la yiraahdaa. Body Hub waxay ka hadlaan waa niche-ka caafimaadka ay ku jiraan, cuntooyinka caafimaadka la jirkaaga u roon, exercise-yada caafimaadka la jirkaaga u roon, waxaas oo dhan ay ka hadlaan. waa channel aad u weyn, waxay haystaan 1.3 million subscribers ay haystaan. haddaan isla fiirino social blade-ka bishii waxay helaan 2.6 million views ay helaan oo qiyaastii lacag ahaan waxay sameeyaan bishii $600 ilaa $10,000 intuu dhexaysa ay sameeyaan. sanadkii waxay sameeyaan $8,000 ilaa $130,000 ayuu estimate ahaan ku qiyaasaya social blade, maadaama ay health niche ku jiraan. health niche-na RPM-kooda iyo CPM-kooda waxaa yahay RPM waxaa waaye 1,000 views inta lacag aad ku heli karto YouTube-ka. niche kasta lacag gooni ayuu ku bixiyaa YouTube-ka. RPM-ka waa kala duwan yihiin. health niche marka wuxuu ku jiraa high paying niches-ka YouTube-ka ayuu ka mid yahay ilaa $10, $12 channelska qaar way gaaraan. meesha ugu hooseyso waa $6 ilaa $12, $12 uu gaaraa. qiyaas ahaan my experience haddaan qiyaaso, Body Hub qiyaastii bishii waxay samayn karaan intuu dhexayso $5,000 ilaa $20,000 way sameeyaan bishii intuu dhexayso. calculator-ka haddaan tagno waxay helaan 2.6 million views ayay helaan. 2.6 iska dheh almost 2.7 waaye, kun u qaybi oo 1,000 views ah 2,600 times meesha ugu hooseyso $6 almost $15,000. waa inta hadda qiyaas ahaan hadda inta ku sheegay waa almost $15,000 way sameeyaan. inta u dhexaysa $5,000 ilaa $20,000 qiyaas ahaan way sameeyaan. almost hadeertaan sida calculator-ka markaa xisaabina hadda ku muuqatana $15,000 $15,600 bishii waa ka sameeyaan. travel niche haddaan isla fiirino, channelkan waxaa la yiraahdaa Tropia ayaa la yiraahdaa. kaliya waxay ka hadlaan waxaa waaye travelka iyo wixii la xiriiro meelaha ugu quruxda badan adduunka loo dalxiisi karo, wadamada USA oo kale gobolada ugu dalxiiska wanaagsan loo dalxiisi karo, Europe haddii noqoto wadamada ugu dalxiiska fiican. adiga waxay ka hadlaan waxaa waaye just dalxiis wixii la xiriiro, travel wixii la xiriiro ayay ka hadlaan. waxaa la yiraahdaa Tropia. travel niche asagana waa very high paying niche waaye. haddaan isla fiirino hadeertaan social blade-kooda haddaan isla fiirino bishii waxay helaan last 30 days waxay heleen 2.9 million views ayay heleen. 2.9 million views social blade wuxuu qiyaasayaa marka inay ka sameeyeen qiyaas ahaan isagoo RPM-kiisii hooseeya ku dhufanaya $725 ayuu qiyaasayaa meesha ugu hooseysa inay ka sameeyaan. halka ugu badan ay ka sameyn karaan bishii ilaa $11,000 ilaa $12,000 ay ka sameyn karaan ayuu qiyaasayaa. sanadkiina $8,800 almost $8,700 inay ka sameyn karaan ilaa $140,000 inay ka sameyn karaan sanadkii. travel niche-ka lacagta ay ku bixiyaan YouTube-ka aad ayay u badan tahay, maxaa yeelay travelka lacag badan ayaa lagu bixiyaa xayeysiimihiisa. marka haddii aan isla fiirino haddii aan isla qiyaasano hadirtaan 2.9 million views ayay heleen 30 beri al soo dhaafay. hadaa u qaybino 1,000 views waxay noqonaysaa $2,900. travel niche almost health uu ka agdhow yahay waa $6 $7 almost meesha ugu hooseyso haddaan ku dhufano $5 haddaan ku dhufano oo meesha ugu hooseysa $24,500. si meesha ugu hooseysa ayagana Tropia bishii meesha ugu hooseysa waxay ka sameyn karaan lacag dhan $10,000 bishii waa ka sameyn karaan. waxaan rabnaa markaa inaan isla aragno Faceless YouTube channel-iska jira ee afka Soomaaliga ku baxa. araba inaan isla aragno oo ku tuso ayagana channel-ka ugu caansan oo Faceless Soomaali ugu caansan ogaansho. si fiican isla fiirino isagana waxa uu ka hadlo topics-ka markaas trend-ka ah ayuu inta badan ka hadlaa. trend jacking ayuu ku daraa content-giisa. almost wuxuu haystaa million subscribers. Faceless channel-ka ugu horeeya 1 million gaara ayuu noqon doonaa. last 30 days 30 beri ugu dambeysay waxa uu helay 1.9 million views ayuu helay channel-ka ogaansho. social blade waxa uu qiyaasayaa $8,000 bishii inuu ka sameyn karo markay ugu badato ugu yaraan $500 uu ka sameyn karo bishii. sanadkiina waxa uu qiyaasayaa ilaa $6,000 ilaa $9,000 sanadkii inuu ka sameyn karo. haddii aan isla fiirino marka aan isla xisaabino qiyaasta 1.9 million views ayuu helay bishii la soo dhaafay. haddaan u qaybino 1,000 waxay noqonaysaa $1,900 ay noqonaysaa. haddaan ku dhufano meesha ugu hooseysa qiyaastii
janalka ogaansho uu yeelan karo RPM kiisa low meesha ugu hooseyso aslahay $3 ma ka yaraa karo I think hadduu ka yaraado 2.5 waaye almost meesha ugu hooseysa $3 ku dhufo waa $5,700 bishii meesha ugu hooseysa $5,000 ayuu bishii ka samayn karaa ogaansho janalkiisa YouTube-ka janalkan wada taqaanaan asagana filmaanta soo gaagaabiya turjumaada filmaanta ka hadla waxa la yiraahdaa khulaasada filmada almost waxa haystaa 795,000 oo subscribers waxaan isleeyahay waa janalka labaad ee 1 million subscribers gaari doona oo faceless ah waxa uu ka hadlana janalkan kaliya looga hadla waa khulaasada filmada magaciisa iyo waxa uu ka hadlana waa isleeyihiin that's good filmaanta ayuu soo koobaa 6 million ay heleen bishii ugu dambeysay soddonka bari ugu dambeeyay $1,500 ilaa $24,000 ayuu qiyaasaya social blade inay ka sameyn karaan bishii almost $20,000 ilaa $290,000 inay ka sameyn karaan sanadkii ayuu qiyaasaya 6 million ay heleen soddonka bari ugu dambeysay marka haddaan fiirino qiyaasta aan fiirino 6 million loo qaybiyey 1000 views waa 6,000 lagu dhuftay meesha ugu hooseyso low RPM kooda ugu hooseeya waxaan dhihi karaa qiyaasta markaan qiyaaso ayagana aad iga warqabo insight-kooda laakiin markaan qiyaaso aqoonteeda intaan YouTube ku soo dhex jiray aan fiiriyo $2 ayaan isleeyahay RPM kooda meesha ugu hooseyso waa noqon karaa almost $12,000 ayay bishii ka samayn karaan haddii million views kaas ay helaan 6 million views ay helaan bil kasta $12,000 ayay bishii ka samayn karaan meesha ugu hooseysa marka qiyaasta meesha ugu hooseysa khulaasada filmada waxaan qiyaasaa ilaa 6,000 ilaa $10,000 meesha ugu hooseysa bishii waa ka sameeyaan janalka la midka ka soo agdhow aan isleeyahay ku jira niishka filmada waxaa la yidhahdaa Liban Bro janalkan isagana waa xaysiinta monetized waaye 178,000 almost 200,000 subscribers ayuu ka dhow yahay kaliya wuxuu ka hadlana waa just khulaasada filmada oo kale waaye filmaanta ayuu soo koobaa last month soddonka bari dambeysay wuxuu helay 997,000 almost 1 million views ayuu helay soddonka bari dambeysay 1 million views ayuu helay $250 ilaa $4,000 bishii inuu ka sameeyo sanadkiina 3,000 ilaa $48,000 inuu ka sameyn karo ayuu qiyaasaya social blade-ka haddii aan marka anaga aan fiirino qiyaasta haddaan fiirino almost 1 million views iska dheh 1 million views loo qaybiyey 1,000 views waa 1,000 janalkan waxay isku niish yihiin khulaasada filmada isla RPM-ka hadda qiyaasno ahayd $2 haddaan ugu dhufano almost $2,000 bishii meesha ugu hooseysa waa uu ka sameyn karaa ayaan isleeyahay Liban Bro YouTube-ka intaasoo jaanis oo aragtay ayaa ka jira YouTube-ka adigana waad samayn kartaa haddii aad halkaan soo gaartay waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad like saarto si dad badan oo adigoo kale u gaaro affiliate marketing qof kale productigiisa ayaad xayeysiinaysaa linki ayay ku siinayaan linkigaas ayaad soo qaadaysaa audience-gaaga ayaad ku xayeysiinaysaa ama ku promote gareynay adigoo isticmaalaya social media YouTube TikTok Instagram all social media waa isticmaali kartaa even Snapchat linkiyadii lagu soo siiyay ayaad soo dhigaysaa social media-gaaga dadka kugu xiran audience-ga kugu xiran markay click ku siiyaan waxaa la geey doonaa sales page-ka ama page-kii productigaas audience-ga markay productiga ku qancaan ay gataan lacagta bixiyaan shirkadda ay lacagta u dhici doontaa shirkadda hadhow waxay track gareynaysaa linkigaas qofkaas sale-ka meesha uu ka imaaday markay ogaato linkigaaga inuu ka imaaday dan waxay ku siinaysaa commission mar walba waxaa jirto marka hore linkiga aad promote gareynayso productiga aad promote gareynayso waxaa ku xusan percentage-ka aad ku yeelan doonto each sale aad samayso marka affiliate marketing waa way fudud oo lacag looga sameeyo internet-ka dad badan ayaana ku tiirsan asaga oo affiliate marketing kaliya ka shaqeysta wax kale aan qabanin oo meel kale aan ka shaqeynin kaliya affiliate marketing dakhli ka sameeya oo guryahooda iska fadhiya ama magaalada rabaan ku dalxiisaya so affiliate marketing waa way fudud oo lacag looga sameyn karo internet-ka laakiin xoogaa u baahan inaad waqti geliso juhdi geliso ayuu kaaga baahan yahay waxaa isla arki doonaa dartaan ku tusi doonaa affiliate network-iska jira oo aad iska diiwaangelin karto si aad affiliate marketing lacag uga samayso affiliate network-ga ugu weyn ka jira adduunka waxaa waaye Clickbank haddaad iska diiwaangeliso waxaad heli kartaa products badan oo aad xayeysiin karto affiliate marketerskana inta badan waxay isticmaalaan Clickbank haddii aad Clickbank iska diiwaangeliso waxaad heli doontaa jaanis fiican oo aad ku xayeysiin karto products aad u tiro badan haddii aad joogto Europe ama America waa iska diiwaangelin kartaa laakiin dadka Soomaaliya jooga inta badan ma iska diiwaangelin karaan Soomaaliya hadartaan lagama ogola oo lagama isticmaali karo haddii aad maagto iska diiwaangeli Soomaaliya adoo joogo ma iska diiwaangelin kartid laakiin alternative-kiisa waxa uu yahay Digistore 24 website-kan la yiraahdo asagana waa affiliate marketing platform waa oo iska diiwaangelin kartid adigoo Soomaaliya jooga ama adduunyada meesha rabtid adigoo joogo ayaad iska diiwaangelin kartaa waxay samayn doontaa marka hore adiga aniga ciwaan hore ayaan ka samaystay Digistore ciwaankaas ayaan login dhihi doonaa oo ku tusi doonaa insight-ka laakiin adiga waxaa samaynaysaa inaad register now dhahdo oo iska diiwaangeliso register now marka aad formkan ayaa kuu soo bixi doona formka buu buuxi simple waa aad u fudud yahay
wax problema iyo passport iyo ID card iyo waxba kuma weydiinayaan aad u fudud yahay Soomaaliya aad joogana waa samaysan kartaa dashboardka markuu kugu soo baxo waxaad tagi doontaa meeshaan ay ku qoran tahay view haddii vendor ay ku dooran tahay please waxaa ka dhigataa affiliate ka dhigo si aad product wax xayeysiiso marka oo aad linkigii product ay xayeysiileed aad u soo qaadato waxaad tagi doontaa meeshaan ay ku qoran tahay marketplace markaad kilo ku siiso halkaan marka waxa kugu soo bixi doono productiska aad xayeysiin karto halkaasna aad lacag kaga samayn karto haddii dadkii aad u bandhigtay ay gataan productiga hadda productigan oo kale u koreeya haddaad fiiriso waxay ku bixinayaan $397.9 haddii aad one sale samayso kaliya almost $400 ayay ku bixinayaan hal qof oo aad keento oo productigan ku qanaco gata kaliya ayaad $400 ka samayn kartaa sida hadda productigan oo kale hadda fiirino asagana $127 ayaad ka samayn kartaa halkii sale aad samayso oo linkigaaga ku gata productigan oo kale hadda si fiican u fiiriso asagana $146 ayaad ka samayn kartaa halkii sale waxaa fiican marka hore inaad niche doorato affiliate marketing markaad rabto inaad bilowdid waxaa fiican niche inaad doorato nichekaas aad products ku saabsan aad xayeysiiso meeshan ayaad tegi kartaa waxaad dooran kartaa earnings dan wuxuu ku tusi doonaa productiga ugu badan oo lacagta ugu badan bixinayo haddii aad fiiriso productigan waxaa la yidhahdaa face to face seminar for business clients $428 ayay kugu siin doonaan barseelkii aad samayso oo aad productigan hadda xayeysiiso $2,400 iyo almost $30 ayay ku bixinayaan qoladan kale sidoo kale productigan waxaa lagu bixinaa $836 kanoo kale oo $751 saa ujeedid marka fiirfiiri iska diiwaangeli digi store niche dooro si aad nicheka aad dooratay productigiis u xayeysiiso waxaad tegi doontaa meeshaan ay ku qoran tahay digital products wuxuu ku tusi doonaa marka almost 20 different niches kala duwan oo aad products ka heli karta hadda fiirino animals and pets oo xayawaanaadka iyo wixii la xiriira waxa ku jirto 151 products oo kala duwan ah xayeysiin karto betting systemskan waxa waa systemska qamaarka iyo wixii la xiriira sida one expert iyo waxa soo kala waa ayana 46 products ay ku jirto business and investmentna almost 534 products ay ku jirto haddii aad fiirso dating and relationships oo kale 263 product dating and relationship oo kala rabtaa inaad xayeysiiso nichekaas aad rabtaa inaad xayeysiiso click ayaad ku siinaysaa productskooda ayaa kuu soo bixi doona dan haddaad rabto waxaad tegi doontaa si haddaad rabto inaad fiiriso productiga lacagta ugu badan aad ka heli karto halkii sale aad samayso waxaad tegi doontaa qodobkan labaad ayaad dooran doontaa sida ugu muuqato $291 waaye nichkan productiga ugu badan aad lacag ka samayn karto tusaale hadda waxaan dooranoo kale fitness and health niche ayaan dooranay inaan wax ka xayeysiino waxaan fiirinaynaa marka productiska ugu sarreeya high converting ratekeedana aad u sarreeya lacag fiicanna aan ka samayn karno tusaale hadda waxaa ku qanacday inaad dooratid productigaana ku qanacday waxaa fiirinaysaa sales pagekooda fiirinaya sales pagekooda aad ayuu u qurux badan yahay waa sales page soo jiidasho leh oo dadka haddii aan xayeysiino ka dhaadhicin karta inay gataan productigan waxaan samaynaa marka si aan productigan u xayeysiino waxaan tegaynaa meesha ay ku qoran tahay promote now ayaad ku dhufanaysaa promote now markaa ku dhufato wuxuu ku sii doonaa wuxuu ku leeyahay copy promo linkiga ayaad soo koobiyeysanaysaa meel gooni ayaad dhiganaysaa meel gooniya inaad ku soo fikiraysid muhiim waaye aniga hadda stick note-kayga ayaan ku koobiyeystay sidaas hadda waxaa ku haysataa marka productiga aad xayeysiin lahayd affiliate marketingka waxaa rabtaa marka xigta next waxaa u baahan tahay inaad fahantid weyga aad wax xayeysiin lahayd sidee wax xayeysiin karnaa qaabka ugu fudud waxaa waaye ku xayeysiin karto inaad samaysato TikTok account oo ka turjumaya magacaaga iyo productiga aad xayeysiinaysa wax ka turjumaya ku saabsan inaad samaysato ku xayeysiiso fiidiyaal aad samayso fiidiyaashaas markii dadka ay daawadaan profilekaaga ayay imaan doonaan profilekaaga markay imaadaan waxaa la rabaa bio link inaad saan oo kale ina soo gashato hadda qoladan hadda isla fiirino waxay samaynayaan kaliya waa caafimaadka iyo health wixii la xiriira ay ka hadlaan productiga xayeysiinayaan waa kana linkigan meeshaan saaran waa affiliate marketing haddii aad kali ku siiso dan wuxuu ku geedi doonaa productiga ay xayeysiinayeen haddaad hoos soo wado waxaad arki doontaa waxay ku leeyihin click watch free presentation waa productiga ay xayeysiinayeen samee kartaa adiga inaad TikTok account samaysato ood ku xayeysiiso muuqaalo badan aad samayso biogaadana aad geliso linkigaaga sidoo kale qoladaana ayagana waxaa u saaran sida ujeedid linka ayaa u saaran biogooda haddaad keli ku siiso waxaa ku geyn doonaa link treegaas kadib wuxuu kugu soo xiri doonaa affiliate productska ay xayeysiinayaan ayuu kugu soo xiri doonaa sida hadda ujeedid Amazon ayay linkigaas Amazon waaye haddaan ku dhufano linkigan kale haddaan ku dhufano affiliate marketing product ayuu ku geyn doonaa same ayagana affiliate marketing product ayay xayeysiinayaan weyga ugu fudud aad affiliate marketing u samayn karto sanadkan 2024 waxaa waaye inaad iska diiwaan geliso Digi Store 24 productiga nicheka aad dooratay aad soo qaadato dan TikTok account aad samaysato TikTok accountkaas aad ku promote garayso muuqaalo aad samayso
muuqaalo markaad samayso kadib aad linkiga biogaada aad soo geliso productiga aad markaas xayeysiinaysay dan meeshaas ayaad ka samayn kartaa dakhligaaga ugu horeeya affiliate marketing aad ka samayso kuma qasbanid muuqaalada aad soo dhigaysa inay noqdaan wax adiga kugu saabsan ama adoo hadlaayo kuma qasbanid waxaad isticmaali kartaa AI ayaa scriptiga kuu qori doono voiceoverka AI ayaa kuu samayn doono teknolojiyadda hadda casriga jirta haddii aad ka faa'iidaysato wax badan ayaad samayn kartaa haddii aad jeclaan lahayd inaan muuqaal ka soo samayno sida aad u samayn kartid muuqaalada noocaas oo kale ah oo aad tiktokaada usoo dhigan lahayd commentiga nagula wadaag waxaan ka soo samayn doonaa muuqaal gooni ayaan ka soo samayn doonaa inaad affiliate marketing lacag ka samayso maxay kugu qaadan kartaa ama waqti intee leeg ayay kaa qaadan kartaa affiliate marketing waa fudud yahay balse ma sahlana waxaan ka wadaa ma ahan wax isla maanta ama caawa aad lacag ka qabsan karta ma ahan laakiin processka aad marayso aad ayuu u fudud yahay markii aad waqti badan geliso oo long time ku jirtana wuxuu ku noqon doonaa income source fiican ayuu ku noqon doonaa almost 3 to 6 months iyo wixii ka badan ayuu qaataa inta badan inaad lacag ka samayso affiliate marketing sanadka 2024 Janis Weyn ayaa haysataa oo affiliate marketing aad ku bilaabi karto si sanadka soo socda ilaa 6 bilood soo socda oo kugu noqdo income source fiican oo aad dakhli ka samayn karto waxaan soo wadnaa muuqaalo badan oo ka hadlaya siyaabaha lacagta looga sameeyo internetka si aysan kuu sheegin muuqaaladaas hubi kanaalka inuu subscribe ku yahay blogging waa inaad internetka ku qorto qormooyin iyo warbixino ka turjumaya ciwaan gooniya ama ka hadlaya ciwaan gooniya inaad yeelato website aad ku soo qorto qormooyin ka turjumaya ciwaan gooniya ayaa la yiraahdaa blogging waa hab soo jiray waqti dheer oo online-ka lacag looga samayn karo haddii aadan fahamsanayn blogging-ka waxaan ku tusi doonaa tusaalooyin kooban oo aad ku ogaan karto waxa uu yahay blogging haddaan soo kicino website-kan la yiraahdo gold24.net waa wada taqaaniin dadkiina sportska iyo ciyaaraha daawada dad badana wax ka akhristo blogging waa website-kan blogging website waaye wuxuu ka hadlaa kaliya sportska ayuu ka hadlaa ciwaankay ka hadlaan waa sportska meeshaas ay lacag ka sameeyaan website-kooda lacag fiican ay ka sameeyaan waxay helaan visitors badan dadka soo booqda waxaa loo soo bandhigi doonaa xayeysiin hadda aniga xayeysiinta waa iga xiran tahay haddii aan u furto xayeysiinta haddaan furto kala dartaan ad blockerka aan iska xiro oon refresh dhaho waxaad arki doontaa hadda sida kuu muuqato xayeysiin ayaa halkaas soo gashay halkan xayeysiin kale ayaa soo gashay meeshaan xayeysiin kale ayaa ii soo gashay halkan xayeysiin kale ayaa soo gashay xayeysiin kale almost website-ka dhan waa wada xayeysiin waxaas u jeedid dadkan lacag ka samaynayaan adigana waxaa laga yaabaa inaad u malayso wax iska caadi ah laakiin lacag ayay ka samaynayaan bil kasta iyo maalin kasta qof kasta oo soo booqdo xayeysiinta asaas ayaa loogu soo bandhigi doonaa tusaale haddaan ku dhufto hadda qormadan oo kale sida kuu muuqata weli xayeysiimihii way daba socdaan website-ka dhan waa wada xayeysiin lacag ayay ka samaynayaan tusaale kanoo kale haddaan fiirino laacib.net qof walba waa yaqaanaa dadka sportska jecel inta badan waa wada yaqaanaan same hadda sida kuu muuqato isku warbixin ayay ka hadlayaan Thomas Muller labadan warbixin oo isku mid ayay ka yihiin haddaa si fiican u fiiriso waa newska ugu dambeeyay sportska ay wax ka qoraan dhammaantood hadda sidoo kale laacib.net haddaan xayeysiinta furto waxaa kuu soo bixi doonta sidoo kale mujeedaa xayeysiintaas kor soo galaysa sidoo kale hoos xayeysiin ayaa imaan doonta meel kasta xayeysiin ayaa kaaga hor imaanaysa waxaas u jeedid xayeysiintaas dhan u jeedid lacag ayay ka samaynayaan dadkan hadda warbixintan oo kale haddaan ku dhufto keli ku siiyo so xayeysiin ayaa kuu soo baxaysa hadda lacag ayay saas ku samaynayaan website-kan laacib.net haddaad fiiriso meeshaan xayeysiintaas kaa soo horbaxaysa lacag ayay ka samaynayaan website-kan oo kale waa blogging niishka ay ku jiraanna waa ciyaaraha waaye footballka iyo sportska wixii la xiriir haddii aan isla fiirino siyaasadoo kale hiiraan online waa taqaaniin qof walba wuu yaqaanaa waxay ka hadlaan waxaa waaye siyaasadda iyo wixii la xiriira ayay soo dhigaan iyo waxyaabaha markaas trendka oo newska ay soo dhigaan ayagana xayeysiinaya u saaran sida hadda ku muuqata meeshaan oo kale kambanigan lagu xayeysiinayo kambaniyaasha lagu xayeysiinayo meeshaas lacag ayay dhiibaan bil kasta dahabshiil oo kale aad dartaan meeshaas inay soo fuusho website-kan lacag ayaa looga qaatay haddii aad blog samaysato adigana sidaas oo kale waad samayn kartaa tusaale BBC Soomaaliya oo kale ayagana waxay ka hadlaan waa siyaasadda iyo wararka cusub iyo samaha marmar sportska ay soo dhigaan mararka qaar Facebook inaad ku aragtaa macquul page-kooda ay soo dhigaan oo ciwaanka title-kooda uu yahay wax aan macquul ahayn meeshaas waxay ka rabaan inaad klik ku siiso website-kooda ay imaato saas ay lacag kaaga sameeyaan hadda meeshaan qarsan hadartaan xayeysiinaa saaran inta badan xayeysiin ay website-kooda saartaan AdSense ayaa u saaran oo Google AdSense ay lacag ka sameeyaan bloggerska dhammaantooda waxaa ku tusi doonaa hadda tusaale gold.net oo kale hadartaan gold24.net oo kale haddaan tagno search haddaan dhahno gold24.net wuxuu helaa bishii 56,000 oo booqasho ayay helaan bishii 56,000 oo booqasho ayay helaan bishii meeshaas lacag fiican ayay ka samayn karaan haddii aan fiirino haddana laacib.net haddaan isla fiirino laacib.net isagana waxay helaan bishii 225,000 oo booqasho ayay helaan so meeshaas lacag fiican ayay ka samayn karaan bloggingka dakhli fiican ayaa laga samayn karaa oo haddii aad
website blogging samaysato tusaale niche sports ko kale blogging ka hadla samaysato waqti fiican aad geliso lacag fiican ayaad ka samayn kartaa taan hadaa fiirno kare hiiraan.com oo kale hadaa fiirno booqashadooda ayagana social media Soomaalidu u badan yihiin balse dad waxaa jirta wax akhriya hadda hiiraan online oo kale 1.9 almost 2 million visitors bishii ay helaan intaas waa dad Soomaaliya soo booqanayo waa haddii aan fiirino meesha ugu badan oo laga soo booqdo waa Germany waaye meesha ugu badan hadda ayaga laga soo booqdo Sweden ku xigto United States then United Kingdom wadad Soomaalida wadanka ka maqanaya inta badan soo booqato waxay ka helaan meeshaas RPM fiican lacag fiican ay ka sameyn karaan hiiraan.com sidee blogging website noocan oo kale ku samaysan kartaa waxaad u baahan tahay marka hore inaad doorato ciwaanka aad ka hadlayso ah ama sports lacag finance ama wax barasho ama wararka inaad ciwaan doorato ciwaanka marka aad doorato magacaaga website-kaaga oo noqon doona inaad magac fiican u qaadato dan kadib magacaas markaad doorato waxaad gadanaysaa domain hosting waxaa ka gadan kartaa website-kan la yiraahdo namegib oo kale domain waa ka heli kartaa hosting waa ay bixiyaan marka inaad hosting iyo domain gadato waxa kale oo kaaga baahan waxa waa inaad website-kaaga dhisato adiga ayaa dhisan kara website-ka ama company ayaad intuu tagtaa dhigi kartaa website blogging ayaa u baahanaa in la dhiso dad aqoon u leh ayaad u tagi doontaa ayaa ku dhisay haddii aad haysan mastercard haddii aad haysan oo aad online ka gadan karin domain iyo hosting tusaale haddaad joogto xamar muqdisho haddaad joogto kale shirkaddan la yiraahdo yoltech.com ayaad u tagi kartaa hosting iyo domainka ayaga ayaa kuu samaynayo website-kaagana ayaga ayaa kuu dhisi doona oo kula samayn doona website-kaaga bloggingka ayaa from scratch kula dhisi doona kaliya waxaad u sheegaysaa magaca website-kaaga aad ka rabto domainka iyo hostingka ayay kuu qabanayaan website-ka ayay kuu dhisi doonaan kadib waxay kugu wareejinayaan website-kaagii oo dhammaystiran ayay kugu wareejinayaan oo u baahan kaliya inaad qormooyin ku soo qorato haddii aadan markaas awood u lahayn ama mastercard aad haysan oo aad online ka gadan karin muqdishona aad joogto la xiriir Yoltech ayaga ayaa ka caawin doona inaad domain iyo hosting ku siiyaan kuna sameeyaan website-kaaga blogging-ka ku dhisaan from scratch tusaale haddii aad rabin inaad lacag ku bixiso in lagu dhiso hosting iyo domain lagu qabto ama lagu dhiso website-kaaga aad rabin inaad lacag ku bixiso waxaad isticmaali kartaa website-kan la yiraahdo blogger.com oo ay leedahay shirkadda Google free waaye website-kaaga ayaad ku samaysan kartaa wax lacag laga amro domain iyo hosting lacag lagu weydiinayo free ayaad ku heli doontaa website-kaaga ayaad halkaas ka dhisanaysaa qormooyin ayaad ku soo bandhigi doontaa markii aad domain-kaaga iyo waxaaga dhan aad samaysato lacag ayaad halkaas ka samayn doontaa oo dakhli ayaa kaa soo gali doona blogging for free ayaad ku samaysan kartaa haddii aad isticmaasho blogger laakiin waxaa more professional ka ah inaad samaysato website adiga magacaaga gooni ku ah oo adiga mar walba waxaad rabto ka samaysan karto oo awoodaysa adiga aad leedahay way kale oo bloggingka lacag looga sameeyo ayaa jira waxaa la yiraahdaa website-kan waxaa la yiraahdaa medium.com ayaa la yiraahdaa medium.com waa website wax lagu soo qoro oo dadka qorayaasha dhan ay wax ku qoraan website-ka marka shirkadda medium la yiraahdo waxay samaysaa sida YouTube oo kale waaye dadka wax ku soo qoro website-keeda lacag ayay siisaa tusaale markii aad ciwaan doorato oo aad qormo fiican ku soo qorto medium oo dad fiican ay daawadaan akhriskaas ay fiirinaysaa shirkadda meesha views lagu bixiyo YouTube-ka lacagta intan waxa lagu bixiyaa meeqa akhrisatay visitorska oo qormadaada booqatay ee akhrisatay sheekadaada ay lacag ku bixiyaan marka dad badan ayaa lacag ka sameeyo medium.com waa tagaysaa ciwaan ayaad ka samaysanaysaa ciwaanka ka samaysato waxaad dhihi doontaa just warbixintaada ama sheekadaada ayaad ku soo share gareyn doontaa haddii aad more international luqadda ingiriiska aad u fahansan tahayna waxaa fiican inaad inta AI isticmaasho niche gooniya doorato AI isticmaasho ChatGPT qormooyin fiican soo jiidashada aad ka qorto dan aad medium ku soo publish garayso halkaas ayaad dakhli fiican ka samayn kartaa medium dad badan ayaa lacag badan ka sameeya adigana waad ku biiri kartaa sign up dhaho ciwaan ka samaysa medium qormooyin ku qor halkaas ayaad insha Allah dakhli fiican ka samayn kartaa haddii aad tahay qoraa wanaagsan laab.com iyo kooxda.com iyo hiiraan.com website-daas marka waxay lacag ka sameeyaan waxa waaye AdSense-ga ayay lacag sameeyaan Google AdSense-ga ayay lacag ka sameeyaan oo xayisiinta Google ayay lacag ka sameeyaan waxaa jirta marka shuruudo oo Google AdSense kugu xiraysa ayaa jirto inaad 20 post ka badan aad soo dhigto kadib aad dalbato inaad ku biirto AdSense-ga aad ku biirto markii AdSense lagu soo aqbalana xayisiintaada ayaad saari kartaa dan qof kasta oo ku soo booqdo oo website-kaaga soo galo lacag ayuu ku sameeyaa meeqa kugu qaadan kartaa inaad dakhli fiican ka samayso bloggingka ma ahan siyaabaha la dhihi karo waa get rich quick waayo lama dhihi karo lacag fiican isla markii lagama helo waqti badan ayuu qaataa 3 months 6 months dadka qaar sanad oo la qaataa kadib ay dakhli fiican ka helaan ciwaan soo jiidasho leh hadaad wax ka sameynaysana aad ay u fududahay inaad hesho visitors fiican aad hesho kaliya wax ugu muhiimsan waxaa waa inaad hesho visitors soo booqdo website-kaaga markaad hesho visitors badan oo website-kaaga soo booqanayo AdSense-gana lagu soo aqbalo halkaas lacag fiican ayaad ka heli kartaa
muuqaalkan haddii aad wax ka faa'iido kaliya waxaan kaa codsanayaa waxay tahay inaad muuqaalka like saarto si dad badan uu u gaaro. markaan waxaa inooga xiga print on demand. waxa uu yahay marka hore isla baahan print on demand online store ayaad samaysan doontaa. online store-kaaga ayaad waxa soo dhigi doontaa products like tusaale ahaan fanaanado, koobab, waxyaabahaas oo kale, baagis, wixii la midka ayaad soo dhigi doontaa oo aad design unique ah oo adiga ku gooni oo adiga aad naqshadaysay ama markaas baahi taagan ka turjumaya ayaad ku naqshadayn doontaa oo store-kaaga soo dhigi doontaa. customer-kii ayaa wuxuu ka soo dalban doonaa online store-kaada ayuu product-kii ka soo dalban doonaa. markuu store-kaaga ka soo dalbado isla markii waxaa order-ka uu dhici doonaa shirkadda kaa saacidaysa daabacaadii fanaanad t-shirt oo kale markuu soo dalbado macaamilka t-shirt-ka ayaa naqshadii oo soo dalbaday ku daabici doontaa. fanaanadii wixii ku daabacan yihiin ayaa macaamilka shipping ugu samayn doontaa package inta u geliso. kadib productigii oo sidii uu ku dalbaday macaamilka ayaa wuxuu tagi doonaa macaamilkii. lacagtii ka soo xarooto qayb kamid ah adiga ayaa iskale, qaybta kalena waxaa qaadan doonta print on demand company-gii kaa saaciday oo u daabacay fanaanadii iyo wixii macaamilka markaas kaa soo dalbaday ayaa qaybta kala qaadan doonta. adigana percentage ayaad ku yeelan doontaa. print on demand waxaa lagu daabacaa baahi markaas taagan, laakiin maahan wax la iska daabacay markaas iska daabacan iska diyaarsan maahan. markaas macaamilka wixii uu soo dalbado ayaa loo daabacaa oo loo ship gareynaa oo loo geenaa. wax hore u diyaarsanay ma ah. haddaan tagno website-ka ugu weyn oo ugu caansan print on demand-ka lagu sameeyo inta badan online store-ka kaa saacidaya, kadibna halkaas aad ka heli karto macaamiil gadata productigaaga. waxaa la yidhahdaa Etsy ayaa la yidhahdaa etsy.com. Etsy haddaad tagtid waxaa arki kartaa everything product kasta ayaa ka heli kartaa Etsy. waa e-commerce platform waaye oo aad wax walba oo ka heli karto. tusaale hadda haddaan doorano meeshaan category-ga ay qoranta haddaan furno oon doorano clothing, dharka oo kale haddaan fiirino oon hoos u soo wadno waxaa arkaysaa stories jiro iyo products markaas la gadanayo, demand fiican ka jiro oo dad badan ay gadanayaan ayaad arki doontaa meesha. hadda sida kuu muuqato hoodigan jaakadan oo kale aad ayay u gadmaysaa $49.3 ayaa la gadayaa. haddaan ayada ku dhufano keliga markaan ku siino waxa kuu muuqdaa dirtaan keliya saddexdaas eray ayaa ku qoran white fox, wax kale kuma qorno. waa print on demand. wax kale hadda ku qoran malaha, just naqshadaas qoraalkaas yarka ayaa ku qoran. options kala duwan ayaad heli kartaa, ilaa kalarka aad rabto ayaad ka heli kartaa oo aad ka dalban kartaa meeshaan. haddii aan marka tagno store-kan magaciisa aan ku dhufano, haddaan fiirino store-kan waxay sameeyeen 87 sales ayay sameeyeen ilaa haddeertaan. waa store cusub waaye, 87 sales ayay sameeyeen. hadda sida kuu muuqato marka waa print on demand store waaye. meesha ugu hooseysa haddeertaan $12 ayaa ugu hooseysa productigooda ugu hooseeya ay gadayaan. calculatorka haddaan haddeertaan xisaabino 87 sale ayay sameeyeen ku dhufo $30 $2,610 ayay sameeyeen. 16 product kaliya ayaana ugu jirta oo ilaa haddeertaan ay soo geliyeen. store-kan waa cusub yahay, aad u cusub yahay. marka waxaa tegi doonaa haddana mid kale ayaan dooran doonaa. tusaale hadda kanoo kale productigan oo kale haddaan ku dhufano productigan $22 ayaa la gadayaa. waana producti fanaanad ilmaha ah, 22 ayay gadayaan. haddaan hoos u soo wadno reviews fiican ayuu haystaa, 5 star ayuu haystaa. haddaan ku dhufano marka productigan store online store-kan haddaan ku dhufano oon fiirino so far waxay sameeyeen marka 13957 sales ayay sameeyeen oo laga gatay macnaha store-kooda laga gatay. haddaan si fiican fiirsano waxay sameynayaan waa iska just simple naqshad waaye oo t-shirt la kor saaro waaye. productigooda ugu hooseeya $22 ayay gadayaan. haddaa si fiican fiiriso simple waaye, very simple waaye. naqshadahooda iyo waxooda dhan aad ayay simple u yihiin. haddii tusaale aan ku dhufano kale keliya waxaa ku qoran I'm not like other girls. qoraalkan ayaa ah qoraal soo jiidasho leh oo inta badanna waxaa gadanaya dhow waa dumar kaliya waaye wax gadan doona. maxaa yeelay productigan dumar kaliya ayuu quseeyaa. $23 ayaa la gadayaa. tusaale haddaan dib ugu laabto oo aan isla fiirino saleskaas ay sameeyeen 13957 sales ayay sameeyeen. meeshooda ugu hooseysa hadda maxaa isla garanay inay ahayd $22.7. producti ka hooseeya weli ma arkin. times marka meesha ugu hooseyso $22.72 senti. almost waxay sameeyeen $317,103 ayay sameeyeen store-kan so far. marka meeshaas waxa kaaga muuqato waxay lacag ka sameeyeen oo simple t-shirt-kan waaye, print on demand waa aad ay u fududahay in la sameeyo productiga hadda ay sameynayaan naqshadahan. waa aad u dhib badan maahan. halkaas marka fursad fiican ayaa ka jirto print on demand, lacag fiican ayaa laga sameeyaa, laakiin waqti fiican iyo juhdi fiican inaad geliso ayuu u baahan yahay. markii aad doorato ciwaanka aad wax ka sameynayso aad doorato oo store-kaagana aad dhisato, waxaa u baahan tahay marka inaad hesho kambanigii kaa saacidi lahaa, kuu fududayn lahaa shipmentiga iyo printingka kaa qaadan lahaa. maxaa yeelay adiga ma haystid oo adiga intaa qofka u daawacdo muu ship garay kartid. mana rabnaa anaga inaan saas sameyno. maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan ka dhigno aan passive inaan ka dhigno oo automated oo noqdo.
oo shirkadaas markuu macaamilkii wixii soo dalbado storekeena ka soo dalbado waxay u tagaysaa shirkadda oo naga saaciidaysay daabacada iyo wixii la xiriira naga saaciidaysa tan shirkadaas ayaa daawici doonto u shib gareey doonto macaamilka lacagtana ayadaa ka qaadi doonto kadkaaga ayaadna kuu soo dhici doona marka shirkadda ugu fiican print on demand-ka ugu fiican haddartaan dadka intooda badan ay isticmaalaan waxaa la yidhahdaa Printify ayaa la yidhahdaa Printify.com ayaad soo kicinaysaa ciwaan ayaad ka samaysanaysaa start for free wax lacaga lagama rabo ciwaanka ka samaysato naqshadahaaga ayaad inta ku samaysan doontaa markaad naqshadaada ku design garaysato halkan ku gado aad saarato naqshadahaaga kadib ayaad ku xiri doontaa store-kaaga Etsy markaad ku xirto halkaas ay macaamiisha ka soo dalban doonaan macaamiisha markay ka soo dalbadaan waxay dalabkaas u soo dhici doonaa Printify ayaa daabici doonta u shib gareyn doonta macaamilka halkaas ay macaamilka ka gaari doonaan productigaagi adoo xamar jooga ayaad macaamil ka gadi kartaa Europe ama America jooga ayaad wax ka gadi kartaa product adiga aad samaysay waxaan ku fududaanayo print on demand shirkadan ayaa ku fududaanayso wixii dhan inta u daawacdo macaamilka u geynaysa adigana halkaas ayaad kadkaaga ayaad halkaas ka heli doontaa maxay kugu qaadan kartaa marka inaad store saan oo kale dakhli fiican sameynaayo bil kasta aad samayso maxay kugu qaadan kartaa waxay kugu qaadan kartaa kaliya inaad juhdi fiican geliso oo la imaato unique idea aad la imaato oo store-kaaga brandingkiisa wixiisa dhan aad qurxiso fikrad fiican aad la imaato oo gadmayso dan markaas aad hesho macaamiil productigaagi iyo waxaaga aaminsan oo gadanaysa kadibna review fiican ku siinaysa tusaale adartaan dadkan oo kale review fiican ayaa helaan haddaad si fiican fiiriso 5 star ayaa helaan qof kasta oo gata recommendation ayuu sameynayaa review fiican ayuu ka bixinayaa productiga sidaas oo kale ayaad adna ku heli kartaa markii aad hesho macaamiil gadanaysa productigaaga oo aaminsan oo productigaaga iibsanaysa review fiicanna ku siinaysa Etsy waxay sameynayaan markaas store-kaaga ayay xayeysiinayaan meelo badan ayay kusoo bandhigayaan haddaan isla fiirino mar kale haddaan tusaale ku tuso example-ka data aan ku tusay haddaan ku soo celino 3960 sale ayay sameeyeen store-kan waxaan ku dhufanaynay 22.73 ayay ahayd $317,310 ayay sameeyeen meesha ugu hooseysa waxaa macquula markii qiyaasta inaa isdhaahdo cumar iska qiyaaso ama waa beentiisa isdhaahda laga yaabaa waxaa ku tusi doonaa website wax kale aan qabanin oo ka shaqeeya keliya online store-ka Etsy waxyaabaha ay sameeyaan income-kooda saleska ay sameeyaan waxaasoo dhan laga heli kara ayaan ku tusi doonaa hadda haddaan soo kiciyo marka application-ka sida kuu muuqato waxay sameeyaan saleska ay sameeyaan almost waa 10,000 oo isaga hadda soo qiyaasaayo revenue-ga ay sameeyaan marka qiyaasta fiiri hadartaan aniga hadda qiyaastii aan qiyaasay 3,317,000 aan qiyaasnay meeshaan hadda waxaa ku qoran $327,179 inay ka sameeyaan qiyaastii store-kooda inay ka sameeyaan saleska ugu dambeeyay hadda finaadaan kale oo ku soo xigta ayadana waa 331 ay sameynaysaa finaadaan oo kale hadda 510 sales ayay samaysay marka akoonkan aad ayay ugu shaqeynaysaa fikradooda adigana waa sameyn kartaa meeshaan dakhli fiican ayaa laga sameeyaa print on demand wax jira waaye aslihiin online-ka lacag lagama sameeyo print on demand wax jira waaye oo adduunyada dad badan ay wax xafadooda jooga ay ku shaqeystaan adna aad sameyn karto oo kaga faa'iideysan karto dakhli fiican aad ka sameyn karto qaabka kale oo aad online-ka lacag kaga sameyn karto waxaa la yiraahdaa domain backing marka wuxuu yahay waxaa laga yaabaa inaad hore u maqlin domain ayaad gadanaysaa domainkaas aad gadatay hosting iyo waxba kuma xiraysid domainkaas aad gadatay ayaad waxaad ku xiraysaa shirkad ka shaqeysa backing service provider shirkad ayaad ku xiraysaa oo aad redirect ku sameynaysaa shirkadaas ayaa waxay sameynaysaa marka xayeysiin ayay saaraysaa shirkadaas domainkaaga xayeysiintaas website-kaaga ayay ka soo muuqanaysaa waxaa laga yaabaa website badan oo aad gashay oo sidaan inay jiraan marar badan oo aad gashay website oo qaabkan ku soo baxday waa jirtaa haddii aad tahay dadka wax baarbaaro oo website-ada galo inta badan waa aragtay website markaad gashay oo qortay website.com ama raacisay ama .net aad raacisay sidaan ay ku soo baxday oo aad garan weysay waxaan waxay yihiin ama aad klik ku siisay ku sii dhufatay mar walba oo aad website-kan soo gasho oo klik ku siiso qofkii domain owner-ka ahaa lacag ayuu heli doonaa lacagtaas wuxuu ka helaa shirkadan oo xayeysiinta saaratay domainkiisa mar kasta oo xayeysiinta dad badan klik ku siiyaan qofka domainkaas iska leh lacag badan ayuu ka sameynayaa damoor oo klik badan uu helo oo visitors badan helo markasta asaga marka faa'iidadiisu waxay tahay in dad badan soo booqdaan domainkiisa klik ku siiyaan xayeysiinta klik marka ku siiyaan xayeysiinta halkaas ayuu asaga bil kasta lacag ayuu iska qaadanaya asoo waxba qabanin website-kiisa waxba ku soo qorin sawirro soo saarin waxba soo saarin ayuu lacag ka helayaa qaabkaas marka online-ka lacagta looga sameeyo waxaa la domain backing waxaa laga yaabaa horey inaad u arkin dad badan oo Soomaali oo ka sheekeynayaan ma arkin weli laakiin waa passive income jira adduunyada laga shaqeysto lacag badan laga sameeyo dad badan lacag ka sameeyaan marka waxaa jirto qaab badan oo loo sameeyo domain backing waxaa jirto number 1 waxa
oo qaybta ugu weyn oo dadka intooda badan ay sameeyaan waxa waaye inaad iibsato domainada la yiraahdo misspelling domains. tusaale facebook.com waa domain jiro Facebook iska leh, laakiin waxaa jira dad badan oo Facebook si qaldan inta u qoraan keeda u dambeysay ka tagaan ama face iyo book iyada u dhaxaysa ay ka tagaan. waa domain error qaab qaldan loo qoray. misspelling domains ayaa la yiraahdaa. misspelling domains kaas meel laga helo ayaa jirta, iyadana waa ku tusi doonaa. haddii aad gadato misspelling domain oo Facebook, Amazon ama shirkadaha waaweyn oo kale aad gadato waxaa laga yaabaa traffic badan inaad hesho, laakiin waxaa muhiim ah mar walba inaad iska ilaaliso copyrighted domains inaad iska ilaaliso. magacyada shirkadaha waaweyn tusaale Amazon, Facebook, Instagram, Snapchat, shirkadahaas waaweyn inaad iska ilaaliso ayaa muhiim ah mar walba. maxaa yeelay copyrighted names waaye, shirkadahaas magacyadooda way diiwaan gashteen, copyright ku xirteen. aad raadisid magacyo shirkado jiro laakiin copyrighted aan lahayn, magacyadooda is copyrighted lahayn, oo waxaa jiro traffic badan helo magacyadooda oo misspelling domainska ayaad raadinaysaa. dan domainskaas ayaad lacag ku gadanaysaa $3, $4, $9 laga yaabaa ku gadatid. bil kastana uu ku sameyn karo $2,000, $3,000, $4,000 oo ku sameyn karo bishii. marka hadda waxaan ku tusi doonaa sidee ku heli kartaa misspelling domainskaas, sidee ku heli kartaa, sidee ku ogaan kartaa website-yada jiro ee misspelling domainska oo lacagta ka sameeyo ay xayisiinta u saaran tahay. ayaan rabaa inaan ku tuso isla aragno traffic ay helaan waxyaabahaas dhan inaan isla fiirino. waxaad tegi doontaa internetmarketingninja.com. meeshaas ayaa waxaa ku qori doontaa domainka aad rabtid inaad ogaatid dadka sida qaldan ay u qoraan. facebook.com oo kala rabnaa inaan gelino. sida hadda kusoo sheegay Facebook oo kale ma isticmaali karno, waa copyrighted name waaye, laakiin waxyaabaha dadka qaladaadka sidee u qoraan aan rabnaa inaan ogaano keliya. haddaa fiirisid middaa u korayso Facebook way qoraan dadka owdaasay ka tagaan, hal oo bisa isticmaalaan Facebook dadka intooda badan. hadda tusaale kaasoo kale haddaa soo kobiyano oon kicino dasi intoona geenaa facebook.com ayuu ku geen doonaa. sababtoo ah misspelling domainska dhan Facebook waa ay gateen, ayaga ayuu u xiran yahay. waa sida hadda aan ku dhahay ma gadan kartid ama ma isticmaali. tusaale kale hadda aan isla fiirinaynaa waxaa jiro website-kan la yiraahdo medium.com. medium.com waa platform wax lagu soo qoro oo dadka writerska ay wax ku qoraan oo dad badan ay wax ka aqristaan, dad badan ay lacag ka sameeyaan. marka waxaan rabnaa medium.com oo kale hadeertaan misspelling domainskooda aan rabnaa inaan ogaano, tan haddii jaanis meeshaas ka banaayaan aan fiirino. sida hadda kuu muuqato kaasoo kale u koraya haddaan search dhahno lacalla waxaa kuu muuqda hadeertaan qofaa qabsaday domainkan oo xayisiintii saartay oo hadda lacag ka sameynaya. isla tusaalihii hadda aan ka sheekeynayno waa medium domainkan aa ujeedid shirkadaasa iskale magaca, laakiin copyrighted ma aysa qabsanin. macnaha domainskan hore maysa u qabsanin ayada. qofka ka faa'iidaystay oo qabsaday domainka markuu qabsaday waxa uu ku xirtay service provider oo domain backing sameeyo. hadda saas ayuu lacag ku sameynayaa. weather.com oo kale website-kan waa website jira oo ka hadla cimilada iyo wixii la xiriira ayuu ka hadlaa. hadda soo koobiyano magaciisa oo aan fiirino bal misspelling domainska jira inaan fiirino, kadib kuwa qaar oo bannaan haddii jiraan aan isla fiirino, haddii kuwa qaar la qaatana aan isla fiirino. okay, kan saddexaad ayaa haddana fiirin doonaa. labadii hore oo ii shaqay waayeen. midka saddexaad oo aan fiiriyey domainkii saddexaad oo aan fiiriyey isagana sidoo kale domain backing ayaa lagu samaystay. qofaa qabsaday oo ka faa'iidaystay fursaddaas, lacag fiican ayuuna ka sameynaya hadeertaan. sida kuu muuqataan xayisiin ayaa u saaran. qofkan domainkan qabsaday qof walba oo meeshaan xayisiinta kilig ku siiya qofkaas lacag ayuu ka heli doonaa. sida hadda kuu soo sheegay marka isla aragnay domain backingka waa fursad bannaan asagana oo dad badan oo fahansan oo ama fikraddan la socda ma jirto. ayadan jaanis waa ka faa'iidaysan kartid. sidaas ayay ku ogaan kartaa marka misspelling domainska qaabkaas ayaad ku ogaan kartaa website-kan haddaad isticmaasho. waxaa kaloo jira marka website kale oo asagana la yiraahdo ib8.com ayaa la yiraahdaa. website-ka hadeertaan hadduu kuu shaqey waayo lacalla oo kuu soo qabi waayo ama kuu soo bixi waayo kan ayaad isticmaali kartaa. ib8 ayaa la yiraahdaa. haddaan hadda raadino weather.com kale haddaan raadino weather.com, ether.com, weather.com. waxaan oo dhan hadda kuu muuqdo waa qaababka qaldan ee dadka u qoraan weather.com. tusaale jaanis fiican haddaan helno oo domain fiican oo weli aan la qabsanin, traffic fiicanna helayo, sidee ku gadan karnaa waa marka, iyo sidee domain backing lacag uga samayn karnaa. waayo su-aasha ugu weyn oo hadeertaan kaa dhex guuxaysa. waxaad tegaysaa godaddy.com. domainkii aad soo heshay ayaad gelinaysaa meeshaan godaddy. si fudud ayaad uga gadan kartaa domain oo mastercard keliya ayay kaaga baahan tahay. haddii aad mastercard haysato domainkaas hore ayaad ka gadan kartaa. waxaa kaloo tegi kartaa Namejeeb. domainka aad soo heshay ayaad gelin doontaa meeshaan. Namejeeb ayaa si fudud uga gadan kartaa haddii aad haysato mastercard. laakiin haddaad mastercard haysanin oo aadan awood u lahayn internetka wax ka gadato, waxaad samayn kartaa domain and hosting provider kuugu dhow oo magaalada aad joogtid jooga ayaad warbixinta u gudbinaysaa. domainka ayagaa kuu qabanayo. sidii aad ugu xiran lahayd iyo shirkadda aad ku xiran lahaydna hadda ayaan kula wadaagayaa. markii aad
domainkaaga gadato kaliya waxa ku dhiman waxa marka inaad ku xirato shirkad bixisa adeega domain backing ka bixisa waxa kamid ah shirkadaha bixiya shirkadan la yiraahdo Bodis la yiraahdo ay ku leeyihiin smart domain monetization marka domainkaaga soo gadato aad iska diiwaan gelinaysaa waxa leedahay create account marka dhacdo emailkaaga iyo warbixintaada ayaad gelinaysaa formkaas ayaad buuxinaysaa dhamaysato oo formkaada aad buuxiso waxa ku xiranaysaa domainkaaga ayaad ku connect gareysanaysaa domainkaaga marka ku xirato inta kale ayaga ayaa sameeynaayo shirkadda ayaa waxay sameynaysaa marka domainkaaga ayay waxay saaraysaa xayeysiimo ayay saaranaysaa xayeysiimahaas markii domainkaaga la soo booqdo ama kilig la siiyo lacag ayay ka sameynayaan ayaga adigana kis ayaa kaaga soo dhacayso sidaas ayaad ku lacag kaga sameyn kartaa domainkaaga adiga oo aan waxba ku soo qorin blogging aad sameynin ayaad lacag ka sameyn kartaa domainkaaga kaliya domain name-ka ayaad lacag ka bixinaysaa xalayaa $9 $15 inaad ku gadato domain name-ka kaliya bil kastana uu ku sameyn karo $50 ilaa $100 inuu bishii ku sameyn karo ayaa macquul waxa kale oo jirta shirkadan la yiraahdo tonic.com ayaa la yiraahdaa shirkadan ayadana iska diiwaan gelin kartaa ayadana waxay bixisaa adeega domain backing ayay bixisaa waa shirkad ka saacidaysa inaad domainkaaga lacag ka samayso si caqliyeysan marka waxa sameynaysaa inaad iska diiwaan geliso ayadana markaad iska diiwaan geliso kadib aad ku xirato domainkaaga aad ku xirato 3 4 5 10 domain ayaad gadan kartaa hadii aad lacag yar haysato waxa la yiraahdaa inaad investment ku samayso domainkaaga aad maal gashato kadibna ayaga ayaa dakhli dib kugu soo celin doona waxay ku noqon doonaan passive income adiga waxba taabanin oo aan shaqo badan gelinin ee lacag ku keeni karaan bil kasta marka qaabkan online-ka lacag looga sameeyo dadka intooda badan kuma baraarugsana waxa la yiraahdaa domain backing waa dad badan ayaa lacag ka sameeya hadii aad hore u aragtay waxyaabaha hadda aan la soo aragnana hore u aragtay website-dan waxa laga yaabaa probably inaad qab website-kan waxaan oo kale aad soo gashay hore u aragtay website ka duwan aad hore u aragtay qaabkan waa qaab online-ka lacag looga sameyn karo oo sax oo la hubo shirkadan oo kale hadii aad haysato PayPal hadii aad account rabto hadhow lacagtaada meesha kugu soo dirayaan meesha aad doorato PayPal ay kugu soo diri karaan hadii aad rabto waxa lagu soo diri karaa account qof dibadda ku jiro hadda Soomaaliya joogto ayaad account-kiisa ku xiranaysaa then halkaas lagu diraya sida YouTube-ka kale waa then halkan ay account-kaada caadiga ayaa lagu soo diri doonaa qofkaas walaalka ama qaraabada ayaa lacagta ku soo diri doona qaabka kale aad online lacag kaga sameyn karto waxa la yiraahdaa Instagram theme page waxa waa inaad account Instagram samaysato adigoo ku saleynayo oo ku dhisaya marka hore inaad doorato niche dakhli fiican laga sameyn karo kadibna aad niche-kaas aad dooratay aad ka samayso Instagram account-ka aad samaysay kadib aad soo dhigto muuqaalo ku saleysan niche-ka aad dooratay kadibna aad dhisto dad badan oo kugu xiran si joogto ah aad u soo dhigto muuqaalo ku saabsan niche-ka aad dooratay kadibna account-kaas aad lacag ka samayso qaab kala duwan ayaad Instagram theme page-kaaga markii aad dhisto oo followers badan hesho aad lacag kaga sameyn kartaa oo kamid tahay inaad affiliate marketing ku samayso oo kamid tahay inaad dadka shout out u samayso aad lacag kaga qaadato postiyada aad u soo dhigayso oo ay kamid tahay inaad account-kaaga dib u iibiso dad badan ayaa jiro Instagram theme pages kala duwan leh oo lacag kaga sameeyo haddaan isla fiirino Instagram account-kan waxa la yiraahdaa my wealth diary ayaa la yiraahdaa waa Instagram theme page waxa iska leh qof dumar ayaa iska leh waxay aad ugu samaysaa soo dhigtaa postiyo simple ah iyo soo dhigtaa muuqaaladeeda hadda dib fiiriso reelska ay soo dhigto waa iska muuqaalo simple ah ku saabsan budgetinka iyo sida lacag loo save gareeyaa iyo sida lacag badan loo sameeyaa iyo waxaas ay ka hadashaa postiyada ay soo dhigto qoraaladeeda iyo sawiradeeda more simple waaye muuqaalada ay sameynaysan waa more simple 109,000 ayay haysataa waxaa rabaa marka inaad ku soo qaababka uga faa'iideysato Instagram account-keedan dadka ku xiran ee uga faa'iideysato lacag uga samaysa ayaan rabaa inaan ku tuso number 1 linkigan hadda fiiriso profile-keeda saaran bio-geeda saaran haddaan ku dhufano waa Linktree page ay ku geyn doonaa Linktree page-ka marka intaas oo links kala duwan ayaa ku jirto link kasta aad ku dhufato marka ayada waa product ama wax ay xayeysiinayso ama affiliate marketing link waaye ama wax kale ay xayeysiinayso ama blog-geeda waaye link kasta aad ku dhufato ayada lacag ayay ka sameynaysaa haddii aad product-gaas gadato hadda tusaale kale linkigan ugu koreeya hadda ku dhufatid oo kale ku siisid wuxuu geenaysaa dashboard-kan ayuu ku keeni doonaa dakhligaaga iyo lacagaha ku soo galsa inaad goreysan lahayd calendar-kaaga iyo waxa aad ugu darsan lahayd form-kaas saacidayo waaye oo almost u badan tahay inuu yahay Excel sheet waaye Excel sheet-kan ay dadka ka iibinay qofkii rabo wuxuu ku gadanaa $70 ay iibinaysaa website-kan ay soo gashatay oo ay ku iibinaysaa halkaas waxay ku iibinaysaa one product haddii aan tagno waxay ku leedahay linkigan kale waa online store oo aad product ku iibin karto ayada marka waxay ku iibisaa digital products oo qofka uu download gareysan karo waa planners ka dartaan asla soo arkeynay ayay isla Etsy ku iibisaa hada kanoo kale $35 ayay iibinaysaa sales hadda ay samaysay so far waa 9,692 sales ayay samaysay haddaan marka qiimeeno tusaale average-keeda products-ka meesha soo geliso $8 inay tahay tusaale haddaan u qaadano oo meesha ugu hooseysa
saleska samaysay waa 9692 ilaa hadda intaas ayay samaysay koonkeedan store online storekeedan laga iibsaday haddaan ku dhufsano $8 waa imisa $77,536 ayay ka samaysay storekeeda ayadoo kaliya iibisay 9,000 almost 10,000 oo mar ayaa laga iibsaday kaliya waxa ku jirtana waa 9 item kaliya ayaa ugu jirto maxaa sabab marka oo akoono badan hadda aan isla soo aragnay 100 item ka badan ayuu ku jiro 9,000 ka yar ayuu sameynaa waxa ay saacidaya gabadhan waxa waaye oo storekeeda saas intaas oo sales inay hesho saacidaya waxa waaye waxay isticmaalaysaa social media ay aad u isticmaalaysaa oo Instagram theme page kan ay isticmaashaa oo ay ku iibinayso productskeeda ay ku xayeysiinayso qofkii markii bio-geedan linkiga kila ku siiyo oo inta imaado linkiyadan ayuu arkayaa store-ka haduu ku dhufto meeshaas ayuu ka gadan karaa si fudud way fudud ay halkaas lacag uga sameynaysaa qofkan marka Instagram theme page kan iska leh faa'iido badan ayuu ku haystaa sanadkii waxa laga yaabaa inuu ka sameynayo intaas $100,000 haddaan ku tusaadana tusaale kale Instagram theme page kan asagana waxaa la yiraahdaa travel waxay ka hadlaan waxyaabaha la xiriira travelka iyo wixii quseeya ay ka hadlaan niche-kooda haddaa fiirisid meeshan website-kan u saaran haddaa ku dhufatid linkiga markaa klik ku siisid website-kan ayuu ku geenayaa sida kuu muuqataa dirtaan website-kan waxay ka yihiin affiliate links ayay ka soo qaateen oo ay promote gareynayaan tusaale haddaa boorsadan oo kale aan gadano $300 waaye markaa gadatid baagan oo linkigooda adoo ku dhuftay aad ku gadato lacag ay halkaas commission fiican ay ka sameynaa almost waxa laga yaabaa in $100 u soo dhacdo oo commission ala qofkii ama $50 markay ugu yaraato maxaa yeelay productkan waa very high waaye lacagtiisa aad u badan tahay akoonkoodan theme page ka ayagoo isticmaalaya waxay haystaan almost 1 million followers waxay dhiseen audience badan ayay dhiseen shout out hadday kuu sameynayaan dartaan waxaa laga yaabaa dadkan aad dhahdid shout out ii sameey ama post ii soo dhig ama product aan wato ii xayeysiiyada dhahdid waxaa laga yaabaa inay kaa qaataan halkii post ay kuu soo dhigaan waxaa laga yaabaa inay $500 $600 ilaa $1,000 ay kaa qaadanayaan waxaa laga yaabaa adigana waa sameyn kartaa theme page taan oo kale theme page kan kale haddaa isla fiirino waxaa la yidhahdaa wealth 9.3 million followers ayuu haystaa sida kuu muuqata dartaan emailkooda ayaa meeshan saaran for advertising wixii la xiriira nala soo xiriir ayay ku leeyihiin emailkaas nagala soo xiriir emailkaas markaa nala xiriirto hadhow oo aad la heshiiso halkaas ayay lacag kaaga qaadan doonaan boostigaaga iyo waxa aragtida markaas ay shout out ku sameyn doonaan ama ku soo dhigi doonaan sidaas ay ayagana lacag kaaga sameeyaan marka Instagram theme page dad badan ayaa dakhli ka sameeyo adiga waxa laga yaabaa inaad waqti badan iska hayso xaafad iska fadhiso aad shaqeyna laga yaabaa haddii aad Instagram theme page samayso oo waqti badan aad geliso juhdi badan aad geliso oo aad u samayso branding aad u samaysto marka hore niche aad soo doorato magac fiican aad doorato branding niche aad dooratana si fiican ugu brand gareyso boostiyada iyo muuqaalada aad soo dhigayso muuqaalka iyo waxa aad soo dhigayso dhan ay isla haadaan oo markastana si joogto ah u soo dhigto followers badan aad hesho dadka raba in wax loo xayeysiiyo ayaga ku soo raadinaya hadda page kan oo kale dadka ayaga xayeysiinta ayaga ma raadsadaan ayaga la soo raadsadaa emailkooda fariimo loogu soo diraa DM-kooda loo soo galaa message ayaa loo soo qoraa marka haddii aad adiga waqti badan hayso oo xaafad iska fadhiso ood leedahay shaqo la'aan aad jirto shaqo ma jirto jaanis badan ayaa ka banaan meeshan haddii aad Instagram theme page samayso waqti fiican geliso hubaal next year followers fiican ayaad heli kartaa lacag fiican ayaad ka samayn kartaa muhiimna waxa ay marka hore inaad faham fiican ka haysato luqadda Ingiriiska inaad faham fiican ka haysato ayaa muhiim haddaad rabto inaad dhisto theme pages oo international haddaad rabto inaad dhisto haddii aad rabto inaad theme page Instagram Soomaali haddaad rabto inaad samaysana waa samayn kartaa dhalinyaro badan oo samaysa ayaa jirto marka akoonkii u kaco oo 100,000 500,000 600,000 u gaarana ay iibiyaan lacag fiican ay ku helaan waa jirtaa dadka qaarna ayagoo ciwaankooda iska iibinaan ayay shout out sameeyaan Soomaali badan jirto oo saa samayso adigana waa samayn kartaa fadhiga kaga shaqo la'aan ma jirto jaanisyada badan oo banaan oo ka mid tahay inaad theme pages kan samayso waxyaabaha hadda aan kula wadaagay dhan inaad samayso ay ka mid tahay ayaad samaysan kartaa dakhli fiican ayaad samayn kartaa sanadka soo socda insha Allah haddii aad u baahan tahay mid ka mid ah qodobada hadda aan la wadaagay inaan ka soo sameeyno video step by step anagoo from scratch ka bilaabayno ilaa akoonkii wixii aan isla sameynayna hadda rabto inaan ka soo sameeyno waa nala soo wadaagi kartaa insha Allah muuqaal dhameystiran ayaan ka soo sameyn doonaa qaybta community-ga nala wadaag kii oo u badato codaynta ayaan ka soo sameyn doonaa muuqaal step by step qaabka kale aad online-ka lacag kaga sameyn karto waa YouTube Shorts inaad samayso YouTube Shorts waa muuqaalada gaagaaban ee 1 minute ka yar oo la soo geliyo YouTube-ka sidii waagi hore muuqaalada short form-ka waxa aad u haystay TikTok-ga sanadihii la soo dhaafay 2 sano ilaa 3 sano la soo dhaafay YouTube-ku way ku soo biireen ayagoo tartan kula jira TikTok-ga oo raba audience-ga TikTok-ga jooga inay YouTube-ka keensadaan waxay soo kordhiyeen programka la yiraahdo YouTube Shorts maxaa lagaaga baahan yahay si aad lacag uga samayso
sida wada ognahay YouTube-ka marka hore short form waxba lacag kuma bixi jirin long form videos ka dhaadheer oo aad ku dhaadheer ayuu lacag ku bixi jiray haddeertaanse wuxuu soo kordhiyey short form 1 minute ka yar in lacag looga samayn karo ayuu soo kordhiyey sanad 2 sano ka hor shuruudaha lagaaga baahan yahay marka si aad lacag uga samayso YouTube shortska waxa waaye shuruudihii hore oo lagaaga baahnay long formka haddii aad aqoon waa 1,000 subscribers inaad hesho iyo 4,000 oo saacadood watch time hours inaad hesho iyo 10 million short views inaad hesho haddii aad hesho 10 million short views iyo 1,000 subscribers short formka xayisiinteeda oo lagu soo aqbali karaa waana dalban kartaa lacagna waa ka samayn kartaa weliba si fudud maadaama haddeertaan shortska lagu soo kordhiyo YouTube-ka oo fududaaday in subscribers la helo in la helo views oo fududaaday sida hore ma aha haddeertaan oo waagi hore way adkeed in views la helo subscribers in la helo aad ayay u adkeed laakiin shortska markii la soo kordhiyey wixii walba way fududaadeen xataa in views la helo subscribers la helo aad ayay u fududaa haddeertaan marka waxaa u baahan tahay si aad shortska lacag uga samayso inaad YouTube channel samaysato YouTube channelkaas markaad samaysato aad muuqaalo adiga ku gooniya oo unique ku ah inaad soo dhigto iska ilaali inaad muuqaalada dadka kale TikTok ka soo qaaday inaad soo geliso mamnuuc waaye hadhow lacag kuma heli doontid oo waxa lagu qabsan doonaa reused content ayay kugu qabsan doonaan YouTube-ka qaab waxaa jirto adigoo isticmaalayo dadka kale qaaladooda aad u soo gelin karto YouTube-ka lacagna uga samayn karto waxaa la yiraahdaa fair use inaad isticmaasho oo aad education waxa entertainment ama education aad ku soo kordhiso aad wax ku soo darto muuqaalka TikTok ka soo qaadatay sidiisa aad u soo geliso YouTube ku soo upload gareyso waxba kama faa'iideys YouTube-ka wax kugu qabanaya reused content lacagna kama samayn kartid waxaa u baahan tahay marka inaad unique content la imaatid haddii aad TikToker tahay inaad YouTube shorts ka faa'iideystid oo aad muuqaalada TikTok aad dhigaysid intan aad soo dhigtid less than 1 minute aad soo dhigtid waa waxa loo baahan yahay waa shortska lacag fiican ayaad ka samayn kartaa haddii aad malaayiin views hesho inkastoo ay kaga si fiican tahay kaga lacag badan yahay YouTube-ka long formka ayaa ka lacag badan short formka YouTube shortskana waa way kale oo adna online-ka aad lacag uga samayn karto shuruudihiisana ma badno hadda aad ayay u fududahay haddaad isticmaalayso shortska inaad subscribers hesho YouTube-ka iyo inaad views badan hesho aad ayay u fududaa dartaan haddii aad isticmaalayso shortska wuxuu u baahan yahay marka hore inaad ciwaan doorato hadday noqonayso entertaining hadday tahay pranks hadday tahay education dadka inaad wax u faa'iideynayso inaad ciwaan doorato niche doorato niishkaas aad wax ka samayso hadday rabto sports ayay noqon kartaa inaad muuqaalo ka soo gudbiso muuqaaladaasna aad dadka la soo wadaagto adiga oo muuqaaladaas ay unique ku yihiin adiga gooni ku yihiin adiga aad leedahay muuqaalada dadka kale haddaad isticmaalaysana inaad wax ku darto isku day mar walbo oo aad noqoto qof wax ku soo kordhiyey YouTube-ka saas ayay u arki doonaan dan markaas ayay ku ogolaan doonaan lacagta waqti intee leeg ayay kugu qaadan kartaa inaad shortska lacag ka samayso ama aad shuruudaha soo buuxiso waxay ku xiran tahay adiga qaabka aad shaqada u qabato iyo sida juhdiga u gelisay mar walba ku xiran tahay YouTube-ka hadduu arko in muuqaaladaada aad mar walba soo upload gareynayso maalintii 2 hal aad maalin kasta muuqaal soo dhigayso dadka muuqaaladaada ay la dhacayaan hadduu arko barmood gareenaya muuqaaladaada dad badan tusi doona kaliya marka hore adiga waa inaad juhdi gelisaa waqti gelisaa usoo diyaar garowdaa ciwaan unique-na la imaataa dadka kale muuqaaladoodana aadan isticmaalno aad iska ilaaliso dad badan waxaan arkay muuqaalada dad islaameed soo upload gareynaya waqti ay kaaga lumaya kaliya adiga fikrad la imaw dadka aad wax ugu ziyaadinayso ama value ama aad kaga qoslinayso dan halkaas ayaad ka samayn kartaa dakhli iyo lacag fiican saaxiib waxaan rajaynayaa haddii aad halkan soo gaartay inaad muuqaalka wax badan ka faa'iiday internetka dad badan ayaa lacag ka sameeya oo meel kale aan ka shaqayn adna waad samayn kartaa haddii aad u soo jeesato oo waqti iyo juhdi badan aad geliso haddii aad u baahan tahay caawinaad ama hagis ku saabsan sidii aad online-ka lacag kaga samayn lahayd waad ila soo xiriiri kartaa waxaan soo wadnaa muuqaalo badan oo aan ku sharaxayno qaabab kale oo internetka lacag looga sameeyo si aysan kuu seegin muuqaalada soo socda hubi kanaalka inuu subscribe ku yahay mahadsanid